cilmi wadaag podcastkan waxaan kaga hadlaynaa waxa uu caawinayo dadkeena Soomaaliyeed ha noqoto xagga dhaqaalaha ama businessyada ama productska markaas suuqa ka socdo waana waxaan la wadaagi doono bulshadeena dhammaan wuxuuna ku salaysan doonaa waxa research markasta la sameynayo la ogaanayo meesha businesska u socdo and then wixii fikirkeenana aan ka dhiibanayno magacaygu waa Sadaam maanta waxaan ahay daadiyaheena podcastiga oo cilmi wadaag businesskan aan maanta rabno inaan ka hadalno waxa waaye tracking businesskana markaad aragtid waa industry aad iyo aad ay dhalinteena aad ooga shaqaystaan ama ay aad ugu hoobteen si ay ooga sameeyaan nolol maalmeed marka waxyaaladan isticmaali doono waxa weeye kow waa loadka ama xamuulka ay qaadaan businessyadan midda labaad waxa waaye unemploymentiga oo industryga and then midda saddexaadna sababeynta aan u sababeynayo anagoon isticmaalayno industry impact fikrado dadka industryga ka shaqeynaya ay soo jeediyeen aan ku bilaabo xagga loadka ay qaadayaan marka saddexda sano oo ugu dambeysay so 2023 2022 iyo sanadkan oo 2024 ah ayaan horta xamuulkan ka hadlaya sorry xamuulka waxaan isticmaali doonaa sanadka 2022 ilaa 2023 markaad fiirisid dhaqdhaqaaqa adeegyada Mareykanka oo alaabaha la qaadayo boqolkiiba 73 sanadka 2022 waxaa qaadaya trucklayada markii lala barbar dhigo sanadkii 2023 boqolkiiba 70 ay waxay qaadayeen trucklayasha waxaana markaa ku muuqato hoos u dhac ku imaaday loadka ay qaadayeen ama tons of load oo halkaasayna u isticmaalayaan inta shay ay ka qaadi lahaayeen midda labaad waxa waaye sidaa darteeda waxay su-aal ka imaanaysaa marka dadkan trucklayasha maxaa kasoo gaarayo maadaama ay isbedelkan weyn aadka ugu dhacay oo productigooda iyo businesskooda ay hoos ugu dhaceen xagga labaad aan fiirin doono waa xagga unemploymentiga maxaa ugu weyneed unemploymentiga waa sanadkii 2020 May ilaa iyo July 2020 oo ahaa boqolkiiba about 16% oo dadka unemploymentiga ugu badnaa ay ahaayeen dadka trucka ka shaqaysta markii 3 sano oo waxaa jirta la isbarbar dhigay markaan fiirinayno Bureau of Labor Statistics May 2024 unemployment rateka oo trucklayada wuxuu gaaray 5.5% sanadka 2023 wuxuu ahaa 3.6% sanadka 2019 wuxuu ahaa 4.3% markaad fiirisid sanadka 2024 marka lala barbar dhigo industriyada dhammaan marka la iskugu geeyo kale oo Mareykanka waxaad arkaysaa boqolkiiba 3.7% unemployed ahead trackingka meeshu ka ah 5.5% marka unemploymentigan maxaa sababay maxaase kor u qaaday yaase aad wax u gaarsiisay ama ay u dhaabacday markii la fiiriyo dadka suuqaqa ka shaqaysanaya ama businessyada ku jiraan taa iyadan waan fiirinaynaa midda kale waxa waaye trendka businesska maanta siduu u socdaa ama siduu u shaqaynaya markaad fiirisid dadka businesskan aadka ugu jiro one of the things ay ka hadlayaan waxay ahayd waa suuqa hadda waa isbedeloyaan affliction point maroyaan waane pre covidka mise markii covidka xitaa uu bilaabanaya suuqa aad buu high u ahaa iyadoo still unemployment ay hoos tahay ay high tahay sorry and then 2022 waxaa dhacday inuu suuqii hoos aad ugu dhaco uu dhaqaale xumay ka dhacdo meesha ay taraaglaha uu ka faa'iidi lahaa qaarkood inay xitaa khasaare kasoo gaartay kambaniya aad u waaweyna ay ku dhacday halkaas ay sababtay inay xitaa suuqa ooga baxaan hadda marka waxaa kuwa oo forecasting ay sameynayaan ama market forecastka la sameynayo waxay tusaysaa in there is a potential suuqan inuu dib usoo laabto
ugu horeyn fallka markii la gaaro ama markii holidayada ay soo socdaan inay isbedeli doonto trendka, waana meesha ugu weyn trendka inuu iska bedeli doono ay isha ku hayaan ay fiirin doonaan inay noqoto rateka lagu qaadayo loodhiyada inay kor u kici doonaan ay ka bedelnaani doonto inta hadda lagu qaado. Marka waxay su-aala maxaa sababa waa marka intaanu sheego hadda socdaan sababaha ay sababanayaan ama ay dhibaatada u keentay maxaa ka mid ah. Midda koowaad waxaa ka mid a overcapacity iyo goods transported. Overcapacityga waxaa waaye alaabta haddeertan la qaado oo dadka alaabta qaadayo oo aad u batay, waayo taraagleydii badanaa dhalinteena especially Soomaalida markaad fiirisid waxay u badan yihiin dadka ay ka rabaan inay businesska leeyihin, companyga leeyihin. So mid kastaba hal track ayuu la ordaya ama 2 ama 3ba iyo alaabta la qaadayo. Marka meeshan tusaale waxaa laga yaabaa in baalka lagu qaadi lahaa rateka $2 baan dhahnaa ama $1 iyo bar. Haddii ay bataan dadkii qaadi lahaa, qofkii alaabta loo qaadi lahaa waxaa laga yaabaa inuu ku gorgortamo $1.30 ama $1 keliya. Ayakana ay diidi karin, waayo hadduu kan diido kan kalaa qaadanayo oo halka ay kasoo gaartay khasaaraha weynka oo ama business companiya badan ay suuqa oga baxeen 2020 ilaa iyo 2022 ilaa iyo 2023. Hadday sida kale ahaan lahayd oo goodska uu badan lahaa oo capacityga wax qaadaya inuu yaraan lahaa suuqa markaa tracklayada aad ugu fiicnaan lahaa, waayo always demandka waa yaalaa, pricekana ayagaa controlayo. Laakiin hadda say nolosha tahay priceka waxaa controlayo dadka alaabta loo qaadayo. Midda labaad waxaa waaye inay tahay dadka dedicatedka iyo maxaa la dhihi jiray midda labaad waxaa waaye markaad fiirisid non dedicated semi trackers, kuwan waa kuwa aadka ay u gaartay inflationka dadka uu aadka wax u gaarsiiye waaye, si oo dhaqaalihii markii uu hoos u dhacay waddanka dhan ayaga waxay noqdeen dadka badanaa oo suuq la-aanta ku dhacday zaa'idka oona suuqa ka baxay. Waxaan fiirinaynaa cost of operationka markii loola barbar dhigo rateka. Waxaa ogtihiin 2 sano lasoo dhaafay inflationka inuu high ahaa oo inflation indexka markastaba ay federalka ay ku daraayeen interest rateka xitaa kor u qaadayeen si ay hoos usoo dhigaan inflation rateka. Maadaama inflationkii uu high noqday, cost of livingkii kor aaday, cost of operation birarkii dagaalada adduunka ka socda haddeertan ay sababtay wax kasta inuu kor u kaco, laakiin ratekiina uusan kor u kicin oo ratekii meeshiisa ama weliba kasii hoos dhacay isagana waxay qasabtay marka in uu ka badnaado costiga qofkii gaariga uu qaadayo gaaskii wixii uu geliyey ayaa ka xoog badnaatay lacagta ama faa'iidada uu ka dhaxlayo ama uu ka faa'iidayo. Sidaa darteeda waxay sababtay marka sida owner operatorka oo kale inuu suuqa ka baxo, kambaniya waaweyn inay suuqa ka baxaan, qaarkood xitaa ay break even ay sameeyaan oo ayakan waxba ka faa'iidin, suuqana waxba uusan faa'iidin oo faa'iido dhan ay usoo raacin, is just cost of maintaining businesskooda un ay wax ku qabtaan. Midda kale waxaa waaye badanaa suuqa waxa aadka dhaawaca u gaarsiiya waa owner operatorka. Marka keligaa tahay oodna la tartamaysid kambaniyada waaweyn, tusaale waxaa ah halka qof markuu wato gaarigiisa contract culus ma qaadan karo, waayo contractiga capacityga ama quantityga ma haysatid oo intaasoo number oo track ay ordaysaa si oo contract fiican ku heshid kuma suurtagelayso versus kambaniga weyn oo dhahayo hey aniga intaanu trackan keenaa oo contract dheerna sidaa ku heli kara, adiga laakiin ay tahay daily basis aad contractyadaadii waxaad aad ku qabsanaysid. Midaana waxay sababtay marka dadkii badanaa suuqa haystay inay noqdeen dadka taajiriinta. Midda kale waxaa waaye dadkii oo isbedelay siday wax u qabsanayeen ama businesskay u samaysanayeen. Consumer preferenceka oo isbedelay markay noqoto goods versus services, dadkii ay ka wareegsadeen tangible goodska la gadanayo, waayo marka koowaad goodska xoog yeeshay oo wax kastaba online laga gadanayo, so truckyada valuegeeda kor u kacay. And then after covid fades away waxaa dhacday marka serviceka inay dadka u bateen oo serviceyaday aad u isticmaalaan compared to goodska caadiga loo gadan jiray. Marka maanta anaga ahaan marka maxaan u malaynaa inuu suuqa noqoni doono, waxaan u malaynaynaa sidii kuwa market forecastiga sameeyey inuu suuqan dib usoo laaban doono in 2025 2026. For sure 2026 waxay u badan tahay inuu cagiisa ku istaagi doono, especially hadduu fallkan
uu transition pointgaas uu sameeyo, uu ka dhaqaaqo, negativeka waxay tahay stabilize noqdo. 2025 na waxay noqonaysaa market growthkiisa, 2026 na waxay noqonaysaa normal operationka inay dib usoo laabtaan. Waxa un dhibaato laga yaabaa inay ku keento inflationka oo hadda waan ka baxnayba isaga, laakiin maxaa la dhihi jiray dagaalada ama trade issueska oo wadamada ka dhex jira sida China iyo Mareykanka. Kuwaas ay dhibaato yar u keenaan, laakiin haddii sida bigger picture la fiiriyo, there's a likely chance that suuqa uu soo laabto if global issues ay stabilization ay ka dhacdo. Waad ku mahadsantihiin wixii su'aal ay nala soo wadaaga. Insha Allah waa anaga iyo idinka iyo wiiga soo socda.